السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دhowaada dhammaan asxaabta aan ku midownay channelkeena YouTube-ka ee Garsoor FX. بإذن الله كريم maanta hadduu Ilaahay idmo waxaan rabaa inaan idinla wadaago concept loo yaqaano daaye concept oo maalmihii ugu dambeeyay ama dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay Soomaalida isla dhexmareysay, qaarkoodna ay fahansan yihiin, qaarkoodna aysan fahansanin, maadaama asxaab badan oo nagu xiran Telegram-keena iyo Discord-keena ay ku xiran yihiin ee naga soo codsadeen concept-ga maadaama interiyada aan la wadaagno ama setup-yada aan la wadaagno aan ku base gareyno quarterly theory-ga ama concept-ga maalmahan isla dhexmarayay. taas darteeda maanta waxaan jeclaysanay inaan idinla soo wadaagno concept-ga ku saabsan ee loo yaqaano daaye concept oo maalmihii ugu dambeeyayba aan yiraahday suuqa ka shidna. daaye haddaadan aqoonin waxaa la ninkan meesha kaaga muuqdo, this legend ayaa waxaa loo yaqaanaa daaye. wuxuuna isticmaala, wuxuu ka mid yahay ICT traderska ama dadka isticmaala concept-ga ICT. marka isaga wareysi la sameeyay oo Wisdom wareysi uu ka qaadayay ayuu ku soo bandhigay oo dhahay waxaa inta badan ani trade ma qaatay ilaa aan ku base gareeyay concept-ga loo yaqaano quarterly theory. sida caadiga marka quarterly theory hadaa maqashid waa kan wuxuu isticmaalaa indicator-kan uu isticmaalaa. indicator-kan wax badan aan ku aragteen oo maleynayaa jaartigayga haddii Telegram-kayga aan ku jirtid ama Discord-kayga signalada ama setup-yada aan soo dirana meesha ayaad waxaa waaye ka aragtaan. inta badan waxaan ku base gareeyaa time and price. quarterly theory marka waxaa laga wadaa time and price sida caadiga marka haddii aad insha Allahu tacaala rajaynaysay inaad concept aad ka heshid aad ku wareersaneed, maanta waxaan rabaa concept-ga aan ka fahansanahay inaan kula wadaago anoo ilaalinayo waqtiga insha Allah. dadnaha naga iloobin inaad subscribe noo saarto, like-na aad noo saarto, share-na aad noo dhahdo maadaama hadda uu sii korayo YouTube-keena. sidoo kale qaybta description-ka waxaan idin dhigi doonaa Discord-ka free waa ku soo beeri kartaa. dhalinyarada asxaabtan ku caawinaa si free ah oo aan kula wadaagnaa setup-yada, idea-yada, fikradaha isku dhaafsadaan iyo Telegram-ka. soo dhawaada. okay haddaan isla fiirino waa kana quarterly theory xoogaha ayaan soo concept gareeyay, aan soo aruuriyay. maxaa laga wadaa horta quarterly theory? What does it mean? maxaa ka fahansanta quarterly theory? I hope haddaadan aqoonin waxaa laga wadaa waa quarterly waxaa la markii xisaabaad la sameynayo kale ganacsatada ama dadka dawladda u shaqeeya ama independence qof walba waxa uu qabanayo wuxuu leeyahay xilli oo warbixinada la soo aruuriyo ama la xiro quarterly report. sanad kasta haddii aad xirtid waxaa sameysaa yearly quarterly aad leedahay. haddii 6 bilood kasta aad xirtid waxaa leedahay second quarterly. haddii 3 bilood xisaab aad gashid waxaa loo yaqaanaa first quarterly ama quarter 1 ayaa xisaabtaada xirtaa. dadka dawladaha u shaqeeya ama hay'adaha maxalliga u shaqeeya kale report-yada markay gudbinayaan waxay ku gudbiyaan qaab like inay tahay quarter 1 oo kale 3 bilood oo ugu horeyso report-da la gudbiyaa. qaar waxay gudbiyaan after 6 months ama 6 bilood half of the year waxaa la second quarter. qaar waxay gudbiyaan full of quarterly, yearly oo gudbiyaan. marka saas la quarterly marka wuxuu ka kooban yahay sanadka oo 4 loo qaybiyo waa time fractal time-ka oo la jijibiyay kaliya waxaa la quarterly theory concept-ga. okay table of contents-kan waxaan ku soo koobi doonaa su'aalahan meesha ku qoran ayaan ku soo koobi doonaa anagoo isla tagi doona jaartiga insha Allah. what is the quarterly theory? maxaa laga wadaa oo ogaan doonaa. making quarterly for different time frames anagoo sameynayna sawirada qaabka ay u kala baxayaan inta uu ka kooban yahay jijibinteeda isla fiirin doonaa. what is Judas swing and true openness? maxaa way true open iyo Judas swing maxaa laga wadaa? we will know insha Allah next. possible price path for quarterly theory maxaa way iyadana price-ka macquulka ah oo quarter-ka alaashan quarterly-ga baraysyada xilliga ay dhaqaaqaan oo la raaco waqtigee waaye xilligee dhaqaaqa fiican uu suuq uu sameeyaa. qaabkaas waa ogaan doonaa. execution technique Judas swing plus true open wax iska gala xilliyada trade la qaadanayo ama la execute gareynayo ama la rabo entry in la qaato ama suuq uu move volume badan sameynayo uu dhaqaaq badan sameynayo xilligee waa ogaan doonaa. how I use quarterly theory with higher time frame BDRA sida loogu isticmaalo ama qaabka aan u isticmaalo oo concept ahaan waa sida ogaan doonaa anoo ku base gareynayo high time frame BDRA. high time frame BDRA waxaa la lahaa daily, weekly,
4 hour 1 hour waa taqaanaan ICT concept qofkii hayo inaad ka soo heshid BDRA waxa la bear value gap order block inversion bear value gap bla 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 wixii la mid ah marka kuma sii daahi doono what is a quarterly theory kay bontiga aadi doona maxaa way quarter theory there are two elements in the charts price element and time elements waxaa lagu base gareeyaa marka marba Englishka inaan ku sii mashquulo kaliya conceptigan ka siin doona adaa si akhrisanayo waxaa jirta laba elementi quarterly theory loo isticmaala elementiga waxaa lagu base gareeyaa inta badan sida caadiga ah price elementiga iyo time elementiska calaashan waqti iyo waxaa la isku raadiyaa in price la qaato ama entryga xilliga la qaadanayo kale ama chartiska la tagaysa waa time and price saa u taqaanaan sidoo kale quarterly theory is a time element quarter theory lagu sheegayaba waa wax waqtiga ka kooban ama waa waqtigii oo lagu jijibiyay oo lagaaga dhigay afar qaybood waqti kasto afar qaybood loo qeybiyo waay sanadkii oo afar loo qeybiyo bishii oo afar loo qeybiyo weekii oo afar loo qeybiyo maalinkii oo afar loo qeybiyo seasonkii oo afar loo qeybiyo simple way fududaa u maleynaa intaas waa ilaahaysan Soomaan okay quarterly theory suggests that time can be divided into 4 quarters each and serve is a different purpose sa hadda ku sheegayo waay quarter walba waa each quarter kasta ama xilli kasta oo loo qeybiyo afar waay kaasoo wuxuu ku imaadaa mid walbana macno gooniyo wata ama purpose isaga u gaar ah okay muxuu naga caawinayaa quarterly theory maadaama anaga aan trader naho suuqan aan ku jirnaa rabna trade inaan qaadana ama entry aan furno muxuu naga caawin karayaa wuxuu naga caawin karayaa inaan fahano wuxuu naga caawinayaa best time to take trade xilliga ugu haboon ah isleedahay entryga xilligaan uu dhaqaaqa sida caadiga session ay ku trade gareysan Soomaan session suuq movement uu sameeyaa ayaa jirto sida London iyo New York oo kale Asian lama trade garay except Judah Swin dadka aan qaadanin oo kale okay waxa kale oo ku ogaanaysaa xilliga ay ku haboon tahay ama time price kaaga ama high time frame BDRs kaaga adoo waxa ku helaysaa high probability ku siinay kalsooni ee calaashan marka rabtid entry A+ oo kale dadka accountnada baasinaya ama challenges ka qaadanayo kale waxay raadiyaan A+ entry-ga maxaa laga soo heraa waa high time frame ina heshid BDRA lagu joogo high time frame BDRA lagu joogo BDRA waxa waaye waa order block fair value gaps liquidity waxyaalaha la midka kadibna aad la soo degtay low time frame ka adoo ku base gareynaya quarterly theory qaabkaas entry-ga loogu qaataa let us see marka qaabka loo jijibinayo hadda conceptiga waa ilaahaysan fila okay markii qaybta kale oo xigto making quarterly for different time frames markii la sameynayo marka qaabka loo jijibinayo hadda xasuusto waxaan ku iri quarter kasto waxa loo qaybiyaa ama waqti kasta waxa loo qaybiyaa afar qaybood loo qaybiyaa tusaale ahaan sanadka 12 bilood uu ka kooban yahay Soomaan a yearly cycle consists of 4 quarters calaashan sanadka wuxuu ka kooban yahay cyclada sanadka wuxuu ka kooban yahay loo qaybinayaa afar quarter kastana waxa waay 3 bilood waay 3 bilood kasto muxuu noqonayaa hal quarter waa ilaahay saanaan filaya inta soo fiirid tusaale ahaan Q1 Q2 waxa laga soo gaabiyay quarterly waay ama quarter laga soo gaabiyay Q1 waa Janaayo ilaa iyo Mars ama January ilaa iyo March waa Janaayo February March saddexdan bilood waxa la isku dhahaa Q1 Q2 maxaa la isku dhahaa waa hadda waxaan ku jirnaa sanadkii qaybtii Q2 gaan ku jirnaa sanadkii la afar loo qaybinayo Soomaan qaybtii koowaad waa soo cunay January February March waa soo qaadanay waxaan ku dhex jirnaa hadda Q1 waxaan noo dhamaaday Q1 noo dhamaaday Q2 aan ku dhex jirnaa yes Q2 muxuu ka kooban yahay marka waa April May iyo June okay April May iyo June waa April to May saddexdaas biloodna waxa la Q2 Q3 maxaa laha July up to September waa calaashan July August September saddex bilood saas Q3 ku noqonay Q4 muxuu ku noqonayaa October November dhexda ku jirto iyo December waa la soo gaabiyay waa October to December afartaana waxa loo qaybiyaa yearly adi marka conceptigan maxaa ku ogaanaysaa tusaale ahaan dad waxa arkaysa marka muuqaalada daawanaysa ama YouTube ka dhex wareegayso ama dadka oo traderska big traderska oo institution traderska oo zaidka suuqaas dadka dhaqaajiyo kala yearly ku xisaabtamayaan ama monthly waxa arkay sanadkan phase 1ka ama quarter 1ka lama trade gareynayo sababtoo suuqa uu qasan yahay waxaan sugeynaa ay ku leeyihiin ilaa iyo quarter 2 hadaa maqasho marka qaabkaas waay quarter 1ka lama trade garay saddex bilood hore saddex bilood damban trade gareynayna ayagoo dhaay marka conceptiga qaabkay u sameynayaan waa qaab noocaas oo kale
okay monthly cycle isagana maxaa loo qaybiyay aan ku dhahay waqti kasta afar u jibine anytime sanadka afar u qaybine bisha afar u qaybine week afar u qaybine maalinka afar u qaybine season kana afar u qaybine waa isla arki doonaa maanta insha Allah anoo soo koobay haddaan codka boobsiino dulqaatay insha Allah monthly cycle consists afar uu ka kooban yahay okay afarta uu ka kooban yahay hal week kasta waxa waa bishi afar week loo qaybiyay week kasta waa quarter 1 quarter 2 quarter 3 علشان Q1 waa first full week ugu horeeya first full week waa Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday saas oo kale okay quarter 2 waa second week oo ilaahay sa Monday to Friday xilliyada la trade gareeyo suuqu furan yahay okay Q3 gana waa third week Q4 kana waa fourth week hadda conceptiga waa ilaahay sa waa fahansantaa oo rajeena bas ka dhicin insha Allah monthly hadii lagu weydiiyo su'aal concept qaybta commentiga igu soo qor wixii su'aal ah qabtid insha Allah ama Telegram-ka nagala soo xiriir waa ka caawin doona wixii inta aan ku soo koobo hadaa fahmi weyse okay conceptiga marka waxa way sanadka meeqa u qaybina afar okay quarter walba meeqa ka kooban 3 bilood bisha meeqa u qaybinay afar quarter walba meeqa ka kooban hal week waa ilaahay san Soomaan week meeqa u qaybinay weekly cycle-ka afar okay quarter walba meequu ka kooban yahay isagana hal maalin uu ka kooban yahay waa ilaahay san Soomaan a weekly cycle consists of 4 quarters each quarter waa 1 day halka maalin isniin oo kale kaligeeda waxay ka kooban tahay hadhow hoos aan usii degi doonaa inta waaye quarter ka kooban laakiin weekly oo kale weekly profile-kaaga oo kale markaa qaadanaysid weekly profile-kaaga muxuu ka kooban yahay tusaale ahaan afar waa Monday Tuesday Wednesday and Thursday isniin talaado arbaca khamiis maalin kasta wuxuu u taagan Q1 Q2 Q3 marka dadka qaar oo ICT trade gareynayo waa aragteena u maleynayo dhahay isniin waa accumulation ma trade gareynayno talaadadan sugeynaa inta weekly low la qaadayo ama high sidoo kale Wednesday hadii la qaado reversal kan soo raacayna jimco waa laga saaray marka jimco waxay leedahay reversal ama continuation waa arki doonaa iyada gooniye leedahay qaab loo trade gareeyo leedahay TGIF iyo blah blah wax noocaas ah lagu trade gareeyaa marka ha ku mashquulin kaliya kuwa tarad la faham okay daily imo marka daily isagana cycle-kiisa meequu ka kooban yahay daily afar uu ka kooban yahay Soomaan maalinkii meeqa season uu ka kooban yahay marka that is the reason ina fahantin loo baahay maalinkii waxa loo qaybiyay 6 hour each season macnaheedu waxa waa afar season uu ka kooban yahay Soomaan seasons waxa la xiliyada suuqa ay furmaan meeqa jeera la trade gareeyaa suuqa Asian season London New York iyo afternoon Soomaan ama New York PM saa u taqaan New York AM yes daily cycle-ka marka muxuu ka kooban yahay afar si fiican ila soo waxaan isticmaali doonaa waa daily cycle ma isticmaali doonaa weekly daily maadaama intraday trader aad tahay daily ga isticmaali doonaa iyo wixii ka hooseeya 90 minute wax la dhaho way noo soo socdaan okay all time oo east maxay ka kooban yihiin daily cycle-ka waxaan niri 6 hour each daily cycle-ka meequu ka kooban yahay hadii lagu dhaco afar halkii quarter meeqa saac uu ka kooban yahay 6 hour uu ka kooban yahay halkii quarter meequu ka kooban yahay 6 hour 6 hour macnaheedu maxaa waaye waa 6 saac علشان season kasta wuxuu furnaanayaa 6 saac maalinkii maadaama 24 saac ay tahay hadaa u qaybisid 6 meeqay ku noqonay 4 simple intaas waay okay afarta quarter saasay ku imaanayaan okay Q1 marka waa Asian season Q2 waa London season Q3 waa New York season Q4 waa afternoon ama New York season oo PM ka ama AM ka ah sorry ha okay waa ilaahay saana u maleeyna marka Q1 Asian season goormay furantaa waxay furantaa 6 to 12 12 saac hal saac 2 saac 3 saac 4 saac 5 saac 6 saac isku darso 6 to 12 meeqay ku noqonay 6 saacadood ay ku noqonay tan markay xiranto waxa furmo Q2 6 saac ilaa iyo 12 saac kalena maxay ku tahay 6 saac kale ku tahay laba lix isku dhufo ama Q1 iyo Q2 min 6 meeqa way 12 Q3 Q4 na meeqa way min 6 12 lagu daro meeqa way 24 meeshan maxaa way marka daily cycle qaabkaas loo qeybiyay waa ilaahay saan rajeynaa marka Asian-ka season-keeda waa 6 up to 12 New York ka dhiganay -4 dooranay jaartiga meesha ka ogaan doonta asla fiirin doona kan marka qaabkaas waay sidoo kale London season-kan isagana meequu ka kooban yahay waa time-kiisa inta waay marka daily cycle-ka markii la sii jijibiyo season u koobnaa Soomaan maxaan ku dhahay marka season kasta haddana muxuu ka sii kooban yahay afar uu ka kooban yahay each season tusaale ahaan meeqa season jirto afar season jirto Soomaan waa Asian season London New York iyo afternoon
mid walba wuxuu kasii koobmayaa haddana ama loo kala qaybinaya 4 xabo okay haddaa xasuusto waxaan ku iri waa kugu soo celinaya waxaan ku dhahay hadday time kasta waxaa loo qaybiyaa 4 okay time kasta waxaa loo qaybiyay 4 waa kala jibinay time-ka oo qaybinay simple daily-ga waxaan usoo qaybinay 4 hadda waxaan joognaa season-ka maxaa la lahaa Asian season London season New York season iyo afternoon okay Asian season meeqa saac ay ahayd 6 saac soo maaha 6 saac marka kaligeeda Asian cycle-ka Africa koobanta afartii halka season 90 minutes oo noqonaa each waxaa dhehaysaa 6 saacadood meeqay ku noqonaysaa 6 saacadood haddii aad u qaybisid 4 6 hour meeqay noqonay xalaashan meeqa daqiiqay ku noqonay halkii saac 60 soo maahan halkii saac soo 60 maahan ha 360 marka haddii aad u qaybisid 4 meeqa sorry waa qalday 90 minute cycle-ka wuxuu ku imaanayaa 6 hour 6 loo qaybiyay hadaa dhahdid 4 90 minute cycle qaabkaas uu kugu imaanaa calaashan waxaan ka wadaa waxaan keenaynaa 90 minute cycle wuxuu ku imaanayaa 90 daqiiqo halkii season uu ka kooban yahay calaashan Asian-ka kaligiisa Q1 waa 6 up to 7:30 ama 12 saac ilaa iyo 1 saac bar 1 saac bar ilaa iyo 9 ama 3 saac mid walba marka wuxuu ka kooban yahay 90 daqiiqo ka kooban yahay haddaan rabno marka cycle-ka 90 minutes inaan soo saarno halkii saac meeqa waay waa 60 daqiiqo soo maahan season walba marka 60 daqiiqo calaashan season-kan Q1 wuxuu furnaanaa 1 saac bar okay 1 saac bar meeqay noqonay marka halkii saac waa 60 daqiiqo barkana meequu noqonaa 30 daqiiqo soo maahan quarter-ka markii isku darso 1 saac oo ku ahayd 60 daqiiqo iyo 30 daqiiqo oo ku ahayd barkii waa 90 daqiiqo soo maahan 90 daqiiqo inta fiiri marka 12 saac maadaama uu furmo Q1 goormuu xirmaa 1 saac bar meeqa la trade gareynaa meeqa calaashan uu furnaanay Q1 1 saac bar halka saac bar meeqa daqiiqo ka koobanta 90 daqiiqo okay 90 kan ayaa wuxuu ku imaaday cycle-ka forka Asian-ka loo qaybiyay hadda waa ilaahaysaan u maleynaa okay sidoo kale Q2 wuxuu ka kooban 90 daqiiqo maadaama 1 saac bar uu furmay isagana ilaa iyo 3 meeqa u dhaxaysa 1 saac bar ilaa iyo 3 2 saac bar 3 saac kadib uu xirmayaa macnaheeda each quarter 1 saac bar ala trade gareeyaa ama uu furnaanaya Q1 kan waa ilaahay hadda clear waa umaleynaa 90 minute marka sida ku imaada hadii lagu weydiiyo 90 minute ka waxa u qaybinaysa kaliya season-ka kaligiisa ugu qaybinay Asian kaligeeda waxay leedahay 4 season waxay leedahay Q1 Q2 Q3 Q4 oo halkii Q ba ama halkii quarter ba ku furnaanay 90 daqiiqo hadda waa ilaahay Soomaan Q1 ka wuxuu furnaanaa 90 Q2 ga 90 Q3 ga 90 Q4 kana 90 markii la isku dardaro waxay ku noqonayaan daily-gu laabo waxay ku noqonayaan hal quarter ku noqonayaan 6 hour ku noqonayaan waa ilaahay Soomaan season-ka halkii season 90 daqiiqo afarta markii la isku daro halkii season meequu noqonaya 6 hour ku noqonaya marka inta oo hal ibar intan labadan kan 1 saac bar iyo 1 saac bar meeqa waay 3 saac intan 1 saac bar isku dar 3 saac 3 saac lagu dar 3 saac meeqa waay waa 6 saacadood 6 saacadood sida daily-ga hadaa soo fiirsid cycle-kiisa season walba wuxuu ku furnaanay 6 saacadood waa ilaahay hadda concept-iga uma baahnid marka sharaxaad dheer I hope saas aan rajeynaa insha Allah haddaan ku wareerina sorry kasii soco London season marka fiiri isagana waa same scenario New York season same scenario marka waa qaabkan okay 90 minute cycle-ka hadana 90 minute cycle-kiya imaanaysa isagana waxa loo yaqaanaa kan macro Allah 90 minute wixii ka sii hooseeyo macro loo yaqaanaa micro aan iraade micro cycle Allah isagana waa arki doonaa indicator-ka waa isla fiirin doonaa micro cycle-ka muxuu ku imaanayaa Asian-kiya waxaan soo kala jibinay season-ka aan 4 u soo qaybinay afartiya waxaan u sii kala qaybin rabnaa 90 minute-kii ayaan waxaan u sii kala jibin rabnaa 4 quarter kaligiisa each 90 minute isagana muxuu ka kooban yahay fiiri 22 minute each calaashan 12 saac u furma 12 saac 22 daqiiqo Q1 maxaa waay waa Q2 na 12 saac 23 daqiiqo ilaa 12 saac 45 daqiiqo furnaanay ama 45 daqiiqo hadba koonfurta iyo bariga saa u kala isticmaashid saacadaha depends aday kugu xirantahay ayaa bina faanta rajeenaya quarter walba muxuu ka kooban yahay 22 okay 22 markii la isku dardaro 90 minute inay imaadaan la rabaa 8 session isagana waa qaabkan concept-igan
I hope waxaan rajeynaa inaad si biyuur oo waadax ah u fahansantahay quarterly hadda uusan ku dhibi doonin maanta kadibna aysan qof oo quarterly theory aan isticmaala dhahayo aadan ku wareeri doonin qaybta commentiga igu soo qor haddii aad fahantay thanks waa fahanay ama like noo saar insha Allah aan sii socono Judah Swin maxaa la Judah Swin quarterkii waa ka soo gudubnay Judah Swin iyo True Open maxaa la okay kay bontigan tagayna Judah Swin waxaa la lahaa waa liquidity sweep markii la sameynayo kala ama meel suuqa high ama high uu ku joogay ama meel lacag taalay liquidity markii la qaadayo ama manipulation lagu sameynayo manipulation markii lagu sameynayo waxaa la Judah Swin lugta manipulation ka Asian ka dhexdeeda sameyso ayaa waxaa la lahaa Judah Swin xilliga dhacda xilliyada waxay dhacdaa oo subaxii Asian ka dhacda then maxay targetkeedu uu yahay intee target gareysanaysa inta badan intee laga dhaxlaa applicable ay ka tahay weekly high low structure high low equal highs iyo equal low intaana waxa la isku dhahaa liquiditieska wixii ka sii hooseeyo waa structure low high ama higher high higher low ama equal lows ama equal highs okay true open maxaa weeyaan true open waxa waaye tusaale ahaan Soomaaliyan joogna kooda candle ka furmaayo kale true open ka yearly kasta wuxuu leeyahay true open intaana sharaxaadaas kale ku kalin true open ka yearly kasta waa 1st of April true open waa ilaahay sanad walba true open kiisa waa 1st of Monday علشان April 1st of Monday monthly true open كأنه محو نقولنا second Monday of the month weekly true open محو نقولنا 6 PM okay or every Monday weekly true open daily true open محو نقولنا midnight candle open أما East time ساعة تقانيد New York session true open ولا Asian true open ولا London true open هذا محاكو قصية مرك what candle هذا قصية وحاكو قصية candle ككود فورماي true open كاس indicator كلو استعمالنا وكتوسي دونا قابك أو تريد جريسد concept كلي إنا فهمت ذا مهمة كدم نوع سلفيريننا أوكي أنت أنا مرك جارتي كان أنت عن سلفيرين كواتر كستا أفرت كواتر وحاجرت كواتر لتريد جريه أما كيو لتريد جريه Q1 Q2 Q3 Q4 markay yihiin waxa la trade gareeyaa sida caadiga ICT conceptiga ay trade gareeyaan Q2 iyo Q3 labadaas trade laga qaataa Q1 wuxuu noqonayaa accumulation Q2 wuxuu ku noqonayaa manipulation Q3 wuxuu ku noqonayaa distribution saddexdaas ugu muhiimsan Q4 ku soo haray continuation uu noqdaa ama reversal uu noqdaa it depends jihada marka suuqa uu u socday ku xiran tahay waa ilaahay saa umaleena okay haddii la dhaho tusaale ahaan suuqiya waxa aragtay subaxan inaad trade gareysid rabtaa suuqiya waxa aragtay ku socdo wuxuu ku bilowday calaashan waxaan rabaa inaan ku kala saaro meeshan laba key point ya kugu qoran si fiican u fiiri possible price for quarterly theory iyo possible path for quarterly theory labadaba isku mid waay two possible paths jiro laba qaab oo waxa way suuq uu dhaqaaqa jirto oo quarterly theory-gana lagu base gareeyo tusaale ahaan AMDX maxaa laga soo gaabay accumulation manipulation distribution continuation ama reversal inta fiiri marka Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 maxaan ku dhahay accumulation loo yaqaan ama consolidation suuqa markii uu isla eg uu sameeyay meel siman uu ku rafanayo ama correction uu ku dhex jiro ama sideways waxa loo yaqaan accumulation waa quarter 1 waa AMDX aan sharxeena suuqa markii uu accumulation uu ku jiro tusaale ahaan saano kala rafashadan oo kale marka aragtid kan fiiri meel isla eg uu ku rafanayo okay manipulation maxaa la dhahaa waa kana Q2 waa Judah Swin-ka lagu sheegayo waa manipulation rafashadii dhaqaaq weyn oo ka dhaxbaxay Q1 muxuu noo ahaa fiiri accumulation uu ahaa Q2 muxuu noqdo waa kana fiiri waa intuu ka bilowday boom ilaa int correction kan dhan uu ka dhaxbaxay looyadii inta yaala liquidity inta yaala wixii dhan wuu cunay kor uu cunay maxaa loo yaqaanaa Q2 waa quarter 2 muxuu maxaa lahaa manipulation waa noocan AMD waa M sidoo kale Judah Swin isaga Allah okay distribution muxuu noqonaa marka suuqi correction uu ku jiray hay'adii la qaaday soo dhicistii iyo jihadii saxeed oo salka loo sii socdaa Soomaan manipulation accumulation manipulation dhacay maxaa sugay marka distribution leg distribution ka marka away distribution leg waa kana lugtan soo dhacda waay true open ka marka waa kana kan waay true open ka la sheegay kan dalka kooda furmaa calaameysane hadii true open kaaga lagaaga kormaro oo Judah Swin uu ka kormaro ama manipulation lagu sameeyo intana accumulation ku haysatid automatically true open hadii lagaaga kormaro waa social gareynay suuqa
haddii true open lagaaga hoos marana waa soo buy garayne always maskaxda ku haytaas haddii true open laga hoos maro maxaan ku iri waa buy garayne suuqa haddii true open laga kor marana waa sell garayne adoo ku base garaynaya quarterly theory ama istiraatiijiyadda aad markaas isticmaalaysid okay marka Q1 mar walba muxuu ku noqonayaa accumulation Q2 mar walba muxuu noqonayaa manipulation Q3 muxuu noqonayaa distribution Q4 muxuu noqonayaa marka continuation inuu ku siira am reversal uu kugu noqdo hadda kan reversal uu noqdo soo ma jeedid Q1 waa kana accumulation uu aha Q2 waa kana manipulation uu aha Q3 waa kana isaga wuxuu soo noqday distribution Q4 na kan waa isagana muxuu noqday reversal uu ku laabtay waa ilaahay Soomaan kana marka waxa la AMD isagoo waxa jira bil aksi Q4 ki soo hormaray meesha hadda accumulation ku soo hormaray waxa inoo soo hormaray Q4 ki oo kala noo soo hormaray Q4 ki marka calaashan x ka bilaabay marka waxa leedahay continuation ama reversal oo kale tusaale ahaan ila socaya ala Q4 ka ma imaanay laakiin Q1 wuxuu noqonayaa continuation ama reversal uu noqonaa meeshii Q1 markii hore accumulation noo ahaan jirtay hadda Q1 suuqay ku xiran tahay hadba suuqiyo waxa aragtahay ilo calaamayso trader rabta ina qaadato suuqiyo waxa aragta marka accumulation ba aan ku jirano reversal sameynaa inta maray ila fiiri suuqu maxaa aragtay isagoo low inta ku yaalo lowgiyo soo jibiyay dhaqaaqo soo sameeyay maxaa way kan marka continuation way Soomaan selkan socday uu hoos u sii wadaa okay marka kala wareega ama reversal uu sameyn raba kala wareegu sameyn raba marka muxuu noqonayaa x tan wuxuu u taagan tahay continuation ama reversal waa kana continuation ama reversal adoo la fiirsanay BDRA high time frame ama 15 minute 1 hour 4 hour it depends meesha ku trade garaysid okay kadib Q2 ga accumulation uu ku noqonayaa waa kana Q1 hadii ku noqday continuation ama reversal uu noqday Q2 muxuu noqonayaa accumulation uu noqonayaa okay Q3 muxuu noqonayaa manipulation Q4 soo trade gareynay oo ku noqonayo distribution hadda waa ilaahay saa umaleynaa si pure marka model kasta adaa ku base gareynay tusaale ahaan in either model a trade can be taken the Judah swing region where the breast test true open aw true open ka interfere true open kaaga adi mar walba waxa target gareysanay true open waa aragtaa Soomaan meeshan reversal inoo aha Soomaahan inta reversal ki inoo aha suuqa Q1 ka muxuu sameeyay reversal kadib muxuu sameeyay Q2 theory accumulation uu gal correction true open ki aan raadinayna aaw marka waa kana true open goormee la helaa after manipulation waa ilaahay Soomaan theory true open ka waa kana adi waa soo kacaysa subaxi kowda candle-ka habeenkii furmaa calaamaysanaysa candle-kaas waxa sugaysa inta lagaaga dul maraayo ama lagaaga hoos maraayo true open ka kan waay true open kiya laga kormaray maxaan ku yiri hadii true open mar walba lagaaga kormaro manipulation lagu sameeyo oo BDRA na lagu joogo oo higher Asian lagu wada qaado waa soo sel gareynaysa hadii true open lagaaga kormaro calaashan lagaaga kormaro waa sel gareynay hadii lagaaga hoos marana waa buy gareynay okay bil aksi waa ilaahay saana hadda umaleynaa marka asoo biyure waxaan isla aadi doonaa jaartigan isla aadi doonaa waa isla fiirin doonaa waxa hadda ku sheegay dhan oo koobana isla fiirinayna insha Allah true open si aad u soo heshid waxa isticmaashaa indicator kan setting kiisa waa kana ICT kill zone pivot TFO waa kana qaabkan setting kiga waa ku dhiga screenshot ka qaado qaabkan u diyaarso kadibna soo imow qaybta hoose isagana qaabkan ka dhigo kadib true open kaaga inta ka soo qoro meeshan opening brace ka kugu qoran tahay true open ka dhiga 00 ku tahay tick soo saaro colorkan green ka dhigo kadibna qaybtaana tick saaro styles ka daa fiirisidna waa kana qaybahan qaabkan u sameeyay inta ka helaysa waxa ka helaysa indicator kan imo favorite ka ku dhufo ICT kill zone TFO kan waa inta ku qoraysa kan waa daaye hadii aad rabtid quarterly theory na waa kana inta daaye quarterly theory ku qoray daaye quarterly theory noocana qaadanaysa kan inta noogu qoran kan 3143 oo tooth grace ka ku qoran tahay isaga soo qaadanay hadaa imaadid setting isagana waa kana hadaa imaadid waa kana setting si fiican u fiirso saxo history hada u baahan tahay oo suuq wixii la soo dhaafay aragti inaad ku base gareysid history-gaana u deysanay hadaa rabtidna waa ka qaaday tigta hadaa ka qaadid price-ka maanta socdo uu kugu base gareynaa kaliya soo ma jeedid wixii hore dhan wuu ka xiraa laakiin history-ga iska furo sidoo kale afartan waa afarta quarter Q1 Q2 Q3 Q4 anu marka waxay yihiin Q1 colorkiisa gray uu yahay Q2 colorkiisa red uu yahay oo London ay ugu taagan tahay Q3 na wuxuu yahay orange ama colorkan
New York ay ugu taagan tahay Q4 na wuxuu yahay gray marka aad waxa samaysataa Q1 iyo Q4 isku color ka dhigo labadaana marka focus ka saareen mar walba suuq labadaana ka dhex baaranaysa markii uu entry ku siiyo labadan oo confirmation ah ku heshid waa qaadanaysa insha Allah sidoo kale time cycle ka daa'imaad yearly iyo monthly iyo weekly waa iska deynaysa intaan dailyga iyo 90 minute ka iyo makraha saaranaysa haddaa rabta high time frame inaad ka trade garaysid 4 hour 1 hour waxa saaran daily 90 minute ka isticmaalaysa less than 15 minute wixii ka sii yarna makraha isticmaalay 90 minute ka okay mid walbana intuu ka kooban yahay conceptiga waa ilaahaysa daily kaligiisa afar uu ka kooban yahay afartiya session haddana sessionadii waxay ka sii kooban yihiin 6 saacadood each session wuxuu ka kooban yahay 90 minute isagana sidoo kale 90 minute ka markaa sii gashid quarter walba isagana wuxuu ka sii koomay 22 daqiiqo waa xasuusataa oo maleena sharaxaadii wixii aad fahmayso commentiga ku soo biir groupkeena Discord-ka wixii caawinaada meesha nagala soo xiriir insha Allah okay aan isla fiirina marka waa kana tusaale ahaan xilliyada suuqa uu furmo waa ku calaameynaya candle-kan soo furo kan true open-kayga aaw si fiican ay fiiriya true open-kayga aaw inta si fiican u fiiri true open-kayga waa kana Friday hadda ugu dambeysay waa kana Friday true open kan waay waa ujeedaa Soomaan meequ furmo koodu furmo hadda hoos fiirisid fiiri meeshan inta qoraalku ku soo qormay eg true open-ka goormu furmaan ku dhahay koodu furma okay waa kana candle-ka koodu furmo kan waay noo calaamaysan waa kana uu soo baxay true open-ka inta waay maxaan ku iri true open-kaaga hadii laga hoos maro mar walbo buy raadi hadii laga kormarana sell soo raadi waa fiirin doonaa mid kale hadda marka hadii aan isticmaalayna kalaradan waa ila fahansantahay kalarkan oo greyga aan ku hal mar ku fududay kan waxa way Asian session London session New York session iyo afternoon ama hadii kale si kale aan kuugu dhigo accumulation manipulation distribution iyo Q4 ama Q1 Q2 Q3 Q4 waa ilaahay saad Soomaan each session haddana muxuu ka kooban yahay afar xabo leeyahay fiiri 1 2 3 4 Asian kaligeeda meeqa xabo ay qabtaa afar xabo London kaligeeda meeqa xabo ay qabtaa afar xabo New York kaligeeda meeqa xabo ay qabtaa afar xabo Q4 kaligiisa muxuu qabaa afar xabo si aan marka u calaameysatid u fahamtid Q1 goor mu furmay waa kana inta ii Q1 sidoo kale noo soo qabo Q2 na soo qaado Q1 meeshuu ka xirmo Q2 ku furma waa kaasa waxaan ku iri goormay la trade gareeyaa Q1 iyo Q2 la trade gareeyaa Soomaan may Q waxa la trade gareeyaa 3 iyo Q4 calaamayso isagana meeshuu ka xirmo iyo meeshuu ka furmo horizontal raygan vertical-ka ii soo qabo iyo calaamay intan focus-ka noo saar bes kan waa calaamaysan kartaa afarta quarter waa kana marka si fiican ila fiiri meeshan joogno waa 15 minute hadhow 1 hour ka adaa soo fiirin doono waa ila socon doontaa hal mar marka si fiican ila soco okay Q1 kan fiiri Q1 waa Soomaan adi suuqa adaa analyze gareysanays kan iska xir kaliya true open-ka noo soo calaamay true open-kaaga aaw candle-ka kan Soomaan noo calaamay kadibna kan iska xir si fiican u fiiri suuqa muxuu sameeyaa true open-kaaga kan waa Soomaan suuqa marka aad u analyze gareyso xilliga uu ku beegmaayo analyze-ka intriga xilliga uu baxaayo waa fahmaysaa marka hadhow intrigaaga xilliga la qaadanayo fahmay ila fiirso yaa si fiican ila fiiri focus-kaaga afartan saar inta ka bilow ilaa inta xilliga intriga la qaadanayna waa kan iyo kan dhexdooda labadaana rabnaa inaan intrig ka dhaxelno kanna ma trade gareynayno kanna ma trade gareynayno gaduudkan iyo jaalahan bisan trade gareynayna kan muxuu inoo noqonayaa Asian fiirso waa Asian session okay soo qaad Asian session ama wuxuu yahay Q1 saa u taqaanid okay sidoo kale kan muxuu noo noqonayaa London session kanna muxuu inoo noqonayaa New York session kanna muxuu inoo noqonayaa afternoon session exam u qaadanayna sidoo kale kan muxuu noqonayaa accumulation haddana marka la fiirsaya waa isla isagi accumulation phase kanna muxuu noqonayaa manipulation phase dheh sidoo kale distribution phase kanna muxuu noqonayaa x kale ku noqonayaa isagana okay x kale marka suuq waxaa fiirisaa haday sharaxaad noo celi waxaa jiray laba concept oo ahaa
laba concept oo ahaa AMD iyo AMDX iyo waxaa jiray XAMD labadan concept maxaan ku dhahay calaashan suuq accumulation ku jira hadaa aragtid manipulation filo distribution ka soo trade garay continuation kana waxa uu arki doontaa laakiin suuqa fiirinaysa suuqa wixii ka dhacaya fiirinay sidoo kale suuq hadaa aragtid reversal sameeyay ama continuation oo low hore sii qaadayo ama reversal soo sameeyay soo kala wareegay maxaa leedahay suuqiga maanta wuxuu ka bilowday continuation oo ahaa ama reversal oo ahaa kadib maxaa filanay accumulation kadib maxaa sugay manipulation kadibna distribution ka trade gareynay inta maxaa ka dhacay markii la fiiriyo adoon iswareerin inta maxaa ka dhacay waxaan hubaa hadaa si fiican conceptigan u fahantid inuu wax badan ka caawin doono insha Allah inta maxaa ka dhacay si fiican ay la fiiriyo hadda meeshan marka accumulation maan dhaheena AMDX ma ka dhacay mise XAMD ka dhacay I think so commentiga ku soo qor hal mar fursadan ku siinaya commentiga ku soo qor meeshan waxa ka dhacay XAMD sababtoo ah suuq fiiri muxuu sameeyay suuqan wuxuu qaaday haygaan uu qaaday lowgaan uu qaaday bam lowgaan markuu qaaday qaybta aan ku dhex jirna maxaa waa fiiri XAMD way marka suuqeena anaga haddii aan aragnay hay la qaaday oo low loo sii qaaday continuation way reversal way soomaan suuq waxaan sugeynaa intuu soo kala wareegayo sababtoo suuq isagoo isla eg oo waxa way accumulation ku jiray oo hal mar wuxuu sameeyay hoos uu soo aaday lowyadii inta jiru soo qaaday hadduu lowyadii soo qaaday face kan fiiri marka face kan kaligiisa ila fiirso waxa ku dhex jiro kan waa accumulation fiiriya waa ku calaameynaa accumulation ka meeshuu ka bilowdo fiiri mid walba maxaan ku yiri haday wuxuu leeyahay wax u gaaray Asian kaligeeda waxay leedahay fiiriya accumulation intuu ka bilowdo meeshan ilaa intuu ku egyahay kor u wad marka this is your accumulation okay hadana manipulation intuu ka soo bilowdo colorka ka bedelo manipulation intuu ka bilowday ilaa intuu ahaa this is your manipulation colorka ka bedelo isagana colorka manipulation ka dhigo kana colorka accumulation ka dhigo si aad u fahantid okay waakana this is your accumulation this is your manipulation distribution kaagi may waakana inta ka bilow isagana distribution phase kaaga waakana ilaa intuu ka bilowday intuu ku dhamaaday ilaa iyo waakaasa si fiican u fiiri marka accumulation waxaan ku dhex jirnaa hal season halka season waxa way suuqu wuxuu noo noqday XAMD uu noo noqday Soomaaliya si fiican fiiri XAMD loo lagu qaaday adi intri marka raadsanaysa marka waxaan ku dhahay kan weyn la soco 90 minute cycle ka weyn la soco daily okay daily marka la socotid waxa fahmaysaa with incision kan afartiisa xab qaabku suuqu dhismay accumulation kan muxuu sameeyay waa kan accumulation ka boxkiisa la fiiri intuu ku ekaaday isla meesha maxaa la trade gareeyaan ku yiri labadan kala la trade gareeyaa gaduudkii jaalaha fiiri markii loo hay inta fiiri maxaa yeelay hayadan dhan ay soo qaaday bum markii hayadan qaaday suuq muxuu soo sameeyay wuu soo dhacay sabab uu soo dhacay meeshan fiiri wixii hay inta yaal liquidity dhan ay qaaday way soo dhacday ilaa inta lowgan ilaa inta dala soo raacday ado marka box kan ka dhex trade gareynay labadan box waa weyn raadi si muufiyada dhaadheer ah u la qabsatid okay accumulation phase ki waa kana intuu ka bilowday ilaa intuu uu dhamaaday manipulation phase ki meeshuu accumulation ku dhamaado ka bilowdo Q1 Q2 Q3 Q4 marka waa kana ila fiiri Q4 muxuu noqday marka continuation uu noqday reversal ma noqon soo ma fiiri intuu kaaga bilowday kana isaga sorry intuu ka bilowday Q4 fiiri meeshaan uu ka bilowday soo ma Q4 waa kana intuu ka bilowday meeshaan intuu ku dhamaaday saande marka ilaa intaan isku xir muxuu noqday reversal uu noqday Soomaan reversal uu noqday inta lagu soo laabto marka adi istiraatiijiyadaada isticmaal true open kaagi waa kana kan dalka muxuu noo ahaa true open suuqu wuu furmay markuu furmay maxaa la sameeyay meeshaan maxaa aragtaa accumulation phase ki inta ka bilowday automatically suuq reversal uu sameeyay lowgana la qaaday sell side liquidity boom markii la qaaday qaybtan ku jira Asian ka ku dhex jira Soomaan waxaan sugayaa Q1 aan ku jira kan waa Q1 weyn qoro Q1 kan waa Q2 sorry Q2 kan waa Q3 kan waa Q4 okay waxaan sugayaa markaan Q2 Q3 aan trade gareynaa entry hadaan helo okay marka Q1 ki dhexdiisa waxaan ka dhex dhacay mujeeda waa cycle
time fractalka uu sameynay suuq then maxaa aragtay suuqi muxuu sameeyay lowgaana la qaaday inta markii lowgu lagu qaaday face-kaana dhamaaday soo maahan face-ka meesha uu ku dhamaanay suuqa muxuu sameeyay reversal uu sameeyay علشان break of structure uu sameeyay waa kana break of structure uu sameeyay sidoo kale true open kaaga waa kana waa lagaaga soo hoos maray haday maxaan ku dhahay true open hadii lagaaga hoos maro suuqa bay garay Q2 mali imaada ha Q2 marka waxa sugaysaa intuu accumulation phase ka dhamaanay waa kana phase 1 intuu ka bilowdo fiir markii entry rabtaa ina qaadayso inta maxaa ku haysataa OP ya ku haysataa candle ama breaker broke sa rabtide inta waxa samaysataa fair value gap kan calaamayso soo jiido inta dhigo this is your fair value gap day entry-gaaga adigu ku base garaysi entry ma sharxay markaan soo sharxi doona soo codsada hadaa rabtaan in oo entry aan ku soo daro qaabkeeda waa soo dhigi doona insha Allah kan waa aragtaa waa lagu soo laabtay marka maxaa noo furan manipulation phase-ka noo furan waxaan rabnaa Q1 kan fiiriya manipulation phase-ka kaligiisa wuxuu leeyahay Q1 intuu ka bilowday ilaa iyo inta wuxuu sameeyay suuqa Q1 reversal meel BDR uu ku soo laabtay okay isla qaybtan gaduudan dhexdeeda hadana dhex trade gareynaya entry ma ka dhaxela meeshan ha break of structure ali sameeyay meesha li EGB ali ugu soo laabtay entry-gayga aawe waa kana inteen ka dhex trade gareynaya fiir box kan dhexdiisa box-ka weyn naftirkiisa aan waxaan ka sii dhex gareynaya Q2 giisan ka dhex trade gareynaya soo maahan waa kana entry-gayga aawe intuu ka bilowday waa la dhaqaaqi inta la iimaad fiiri marka distribution kan gaada soo maahan waa kana distribution phase intuu ka bilaabanaya SLK-ga loo ugu hooseeyay ilaa iyo meeshan waxa raadsanay BDR ilaa iyo inta la soco ilaa iyo Q-gan la sii soco distribution phase kan entry ma hesho mise maadan helin symbol wax adag ma jiro qaabkan lagu base gareeyaa qof walba istaraatiijiyadu isticmaal ku base gareynaya qof walba concept uu haysto ku base gareynaa hadaa SMC isticmaashid ku base gareey hadaa market structure isticmaashid ku base gareey hadii ay isticmaashi ICT 100% way ku fiican tahay maalin walba marka lama helo laakiin waxa muhiim ah inaad fahamtid AMDX iyo XAMD labadan si aad noola socoto qaybteena Telegram-ka iyo description-kan ku soo dhigay iyo Discord-keena nagu soo biir subscribe noo saar like noo saar la wadaag asxaabta qofkii raba inuu ka faa'iideysto وإذن سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي سؤال أقبتان قيبت كومنتين نوغو سوريا.